maalmihii aynu ka soo gudubnay waxaa Soomaalida dhexdeeda aad ugu badnayd hadalhaynta ku saabsan ciidankii dowladdii madaxweyne Farmaajo ay u dirtay dhinaca Eritrea si halkaasi tababaro ay ugu soo qaataan hase ahaatee muddo ka badan 2 sano halkaasi ku sugan. waxaana marba marka ka dambeysa la helayaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ciidamadaas sida loo geeyay dhinaca Eritrea iyo heshiiskii ay wada galeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isiyaas Afwerki oo ah madaxweynaha dalka Eritrea. haddaba macluumaad dheeraad ah ayaa waxaa mar kale soo bandhigay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya kaasi oo waraysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga Universal ee maxalliga ah shaaca uga qaaday inay jirto arrimo uu isagu og yahay oo sabab u ah in dowladdii madaxweyne Farmaajo ay ka gaabsato ka hadlidda guud ahaanba ciidankaas iyo sidii lagu soo celin lahaa halka waalidiinta ciidankaasi ay ku barooranayeen wadooyinka magaalada Muqdisho balse cid la hadasha ay waayeen intii xafiiska uu joogay madaxweyne Farmaajo. xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ayaa wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in isfahamwaas oo kala dhex galay Isiyaas Afwerki iyo weliba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan ay sabab u noqotay. aniga markii ugu horeysay waan la tagay oo isaga iga dalbaday dowladda Eritrea inaan xiriir la sameeyno oo rabay inuu tago waana la sameynay sidaa ayaan ku tagnay Eritrea ayuu yiri. sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday xildhibaankan hore in wada hadaladii u dhaxeeyay labada dowladood bilowgeedii lagu heshiiyay in la isdhaafsado safaarado balse aysan suuro gelin wuxuuna tilmaamay intaasi ay horseeday in humaag iyo madmadow uu soo kala dhex galo labada dowladood oo xiriir xooggan ku balansanaa inay sameystaan. markii aan xagga la tagay waxaa lagu heshiiyay in 2 safaaradood horta la isdhaafsado bilowgiiba ilaa iyo hadda saacadan la joogo safaaradihii lama furin micnaheedu marka waxa ay tahay waxaa jira is-afgarad la'aan labada madaxweyne soo dhex gashay waana mid dhici karta ayuu yiri. madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu xilka wareejinayay oo kaliya ka hadlay isla markaana wareejiyay faylka diiwaanka ciidamadaasi oo tababar u jira dalka Eritrea inta ka horeysay dowladdiisa kama aysan hadlin. taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowa mar baarlamaankii hore ay wax ka weydiiyeen wuxuu sheegay inuusan ogeyn ciidan tababar u jira dalka Eritrea oo ka tirsan xoogga dalka.